السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارta qaaliga dunida daafida meel kastoo dunida daafida ka joogtaan qofkii la hadlay waa qadar hudle halkaad naga daawalaysaa naga dheehanaysaana waa bartaan ku kulmi jirnay ahida Andiso official dhamaantii daawadayaal soo dhawaada bal maanta maxaanu ka hadli doonaa fadlan channelka intaad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar muuqaalka like gare oo la wadaaga saxaabtaada si share gare oo la wadaaga saxaabtaada qaaliga wixii fikriya oo raahiya aragtiyana commentiga hoos nagu reeb aad baad maasan tahay hadaba maanta waxaanu ka hadlaynaa shirkii magaalada Boorama qaraxan oo hadaba sababtay booyad shidaal waday oo shubaysay kaalinta seed hadaba ilaa hadda lama ogo balse ciidanka booliska ee gobolka Awdal ee degmada Boorama ayaa waxay wadaan baaritaan ilaa hadda wax baaritaan la sameeyay ma jirto balse waxa isweydiin tariyay daawade maxay tahay sababta keentay in kaalin ku dhaxtaala bartamaha magaalada Boorama ay waxaan qarax samayso booyadan balse halka hadaba ay sheekadu u dhimatay ayaa nuxurka waxay tahay dirawalkii waday ayaa waxa uu ka farsan waayay maatida iyo waliba hantidan taala magaalada Boorama sidoo badbaadin lahaa booyada ololeysa markii uu arkay inay dab qarax samaynayso waxa kilomitir ula cararay xagga iyo hotel Sow hadaba daawada adiga fikirkaaga hoos ku dhiib qofkaasi ma waxa badbaadiyay bulshadan mise waxa badbaadiyay booyadiisa qofkaas oo kale maxaa la oran karaa waa commentiga fikirkaaga nagu dhib aad baad u maasan tahay hadaba kan lama dhihi karo waa dirawal balse waa mujaahid haddaad maqrajitay mujaahid waa wiilkan oo kale ciidanka booliska ayaa waxa ugu baaqeen ilaahay ha caafiyo ee dirawalkii booyadan waday iyo laba qof oo kale inay ku dhaawacmeen booyadan balse wariyaasha magaalada Boorama degmada Boorama jooga ayaa waxay soo xaqiijiyeen inuu wax khasaare jirin marka loo eego dhanka dhaawaca oo laba qof iyo waliba dirawalkii booyadan waday hadaba dirawalka booyadan waday ayaa isagu waxa uu sababay in uu ka doorbiday intii ay bulsho iyo hanti badan ku baabiilay degmada Boorama oo gobolkii nabadda gobolkii aqoonta ayaa waxa uu ku badbaadiyay ubax dhan oo soo korayay oo dalkan madax ka noqon lahaa hadaba waxa la oran karaa ninkaasi waxa uu badbaadiyay bulshadan iyo waliba hantidan daawade adiga maxay kula tahay fikirkaaga la wadaag hadaba ciidanka booliska ayaa waxay ku abaal marin doonaan wiilkii hantida iyo waliba badbaadiyay shacabka geesinimada ku tilmaamay ciidanka booliska oo hadlaya taliyaha ciidanka booliska oo hadlaya ayaa waxa uu yiri sida tan ciidanka dadamiska ee gobolka Awdal xooggan ma maqan waaqa soo dhacay iyo marka ay yimaadeen isku midayay waxa boqolkiiba wadaarkiisan waxa hadlay taliyaha ciidanka dandamiska ee magaalada Boorama isagoo sheegay in ayna wax ay ka soo gaareen macnaha konton halkii todobadii oo waxa la soo wacay todobadii oo konton halkii todobadii shan iyo konton way yimaadeen isla markaasina waxay ku guuleysteen inay dabkaasi badbaadiyaan badbaadinta ka hor waxa iska leh Ilaahay oo wax badbaadiya balse sababteena ayaan la imanaynaa hadaba waxay booyadaasi marka ay ciidanka dandamiska halka yimaadeen way ku damiyeen waxa isaguna dhakiisa ka hadlay ciidanka taliyaha booliska ee gobolka Awdal oo isaguna sheegay sida tan maan mudan dareewalka ka soo dhaqaajiyay iyadoo ololeysa suuqa dhexdiisa kaalinta ku taala ee shidaalka lagu shubaayay iyadoo ololeysa dhiiranaanta soo dhaqaajiyay ee magaalada ka soo saaray xoog boqolkiiba boqol wadarkiisan daawada sida quruxda badan ee sharafta leh ee ugu mahadnaqay wiilkii dirawalka ee waday booyada kana mas'uulka sida isaga uu door biday macnaha in uu isagu ku dhiiranaaday inuu booyada intaas 1 kilomitir kala soo cararo bartamaha magaalada Boorama uuna u kaxeeyay xagga iyo meel ka baxsan magaalada Boorama ama Sow hotel waa meel yar oo iska baadiya kadib booyadii saas uu qalibay sida inay muuqato hadda waxaad arkaysaa dadka ku soo ururay booyadii oo bas beeshay hadaba maxay heeday Ilaahay ayaa u gargaaray oo qof kasto bilaadan u gargaaraya sababteeda wax walba leedahay ciidanka booliskuna daawada waxay wadaan baaritaan ay bal ku gowrgalayaan sida macnaha qaraxan u dhacay say booyadani u qarxi gaadhay waxa sababay in ay booyadu gubato iyo waliba waxyaalo badan ciidanka booliska ee degmada Boorama ee gobolka Awdal ayaa hadda gacanta ku haya bal wixii ka soo fuda ayaan la wadaagi doonaa asxaabta qari aad badmaansatay marka soo dunida daafida ka joogtaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan maalin quruxan channelka subscribe haddaad ku cusub tahay noo saar like gare si uu saxaab badan oo adigoo kala u helo muuqaalkana si share garo la wadaag saxaabtada qaaliga aad ma maasantaa wixii fikir iyo orahana commentiga ku reeb maxaa sababay in ay booyadu waxan samayso maxaa ka dambeeyay bal saxaabtada qaaliga aad maasantiin inta aynu muuqaalkan labada ku kulmi doono dhamaantiin anigoo jecel iyadoo jecel bartan aanu ku kuluna waa Andiso official qofkii laadina waa qadar hudle dhamaantiin muuqaalkan labada ku kulmi doono waxaan iga tagayaa sida ayo fi amaanillah.